haddii aad xaaladdan ku sugan tahay isbedel degdega ayaad u baahan tahay muddadii 30 cisho la soo dhaafay waxaan ka maqnaa social media dhammaantii oo dhan hadday noqoto Instagram hadday noqoto Facebook hadday noqoto YouTube oo telefoonkayga kuma jirin ilaa iyo inaan computerka ka galo aan arko mooyaan waxaan isweydiinayay muddada 30 cisho waa maxay Allah musta'an faa'iidada uu ku hayo social media inaad ka heshid iyo waa maxay faa'iidada darrada uu ku hayo maantii nasiib badan baynu yeelanay social media nu helnay temptation fiican baynu helnay cuntadii baa jaban wax badan oo waxaan helaynaa maskaxdeena Allah musta'an helaysa dareenka dopamine kala dhaado dopamine waa dareen kamid ah dareemada ay maskaxdeenu soo sii deyso markaynu hawl qabano ama markaynu waxaynu certified ku dareemano hadda videogan oo kale markaan dhameeyo ama shaqay taale maanta oo kale markaan dhameeyo waxaan dareemi doonaa dareen farxadeed marka dareenka farxadeed wuxuu noqonayaa mid isiinay marka social media iyo xilligan aan maanta noolnahay hadday cunto noqoto hadday social media noqoto hadday TV ga noqoto wax kasta oo ku siinaya dareenka farxadda ku siinayay wuxuu dilayaa inaad shaqad dul taagnaan karisid inaad fadhii karisid that's why hadda loo leeyahay generation ka dambeeya 1996kii way ka focus yihiin generationadii kale loogu talagalay muddadii 30 cishan ka maqnaa social media wixii aan ka faa'iiday baan muuqaalkan igula wadaagi doonaa iyo sidii aad adiguna detox ama sunta maskaxdeena social media uu ku sameeyay aad taga saari lahayd ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay warsan baday waxaan channelkan ku soo gudbinaa tabo iyo tusaalooyin aad ku horumarin kartid naftaada noloshaada iyo dhaqaalahaaga haddii aad nagu cusub tahay farxad bay noo tahay inaad nagu soo biirtid muuqaalkana like saar soo dad badan u gaaro dhalinyaro badan baa ila soo xiriiro igu yiraahdo warsamo waxaan u baahanahay inaan isbedel sameeyno laakiin isbedelka waa nagu adag yahay halkan shay unba ka hor istaagi karaya inaad noloshaada wax gaadhid ama wax ku oolaad samaysid ama wax ku oolaad samayn weyd arrinka koobaad waxa weeyaan inaad focus yeelan weyd focusku waa awoodda ugu weyn haddii aad wax focus gareyn karaysid oo intaad hal shay dul fadhiisatid muddo aad dul taagnaan karaysid wuxuu ku siinayaa inaad wax badan aad noloshaada qaban karaysid waanta adduunka focusku waa dhintay waayo kompaniyo waaweyn oo $1 trillion ayaa ku tartamaya attention-kaaga xilligan aynu nool nahay maanta waa attention age waxaana daawanaysid waxaanaad waqtigaaga ku bixinaysid marar badan kuu soo baxdaa intaad maalin soo sira kacdid maalinkaas adigoon waxba qabanay dhamaato kuu soo galaa weekaas adigoon waxba qaban waxaad ku mashquulsanaydna uu yahay telefoonkaaga meel ma gaari karaysid ilaa focuskaaga soo ceshato mooyaan focuskaagana ma soo ceshan karaysid ilaa 30 cisho oo detox oo maskaxdaada sunta ka jirta aad ka saartid mooyaan arrinka koobaad ee u baahan tahay waxa weeyaan inaad social media haaga iska delete garaysid hadday noqoto Instagram hadday noqoto Facebook hadday noqoto TikTok hadday noqoto YouTube aniga caadi ahaan Allah musta'an waa part of my business laakiin iyadoo saasa ayaan nafteeda ku qasbay Allah musta'an 30 cishan ka maqlaana waxaan helay fikradihii igu fiicnaa in entire last 9 months ugu dambeeyay fikradihii ugu fiicnaa aan helay arrinka koobaad oo baahan tahay social media ka delete garay telefoonkaaga 30 cisho oo sooma waliba hadda Ramadaan baa soo galaysa Ramadaan wax yar bay inooga arkin inta Ramadaan tan Allah musta'an ugu sii faa'iideysan karaysaa maskaxdaadu haddii ayna faaro ahayn haddii maskaxdaadu mashquulsan tahay haddii aad maanta dhan aad ku mashquulsan tahay telefoonka aad ku foogan tahay way kugu adkaanaysaa inaad wax badan samaysid marka waxaad u baahan tahay inaad 30 cisho oo detox oo maskaxda suntaada ku jirta maanta dad Facebook gashid Facebook muxuu ku keenayaa siyaasad baa xagan ka dhacday waxaan kala xagan ka dhacay kan kala san noqday kan kala soo noqday ay ku keenaya haddii aad TikTok ku dhex jirtid hebel baa isku leeganaa labadan kala maxay ku jiray kan kala ku jiray adiga waqtigaaga markaa ma waqti dadka kale isticmaalayaan ba mise waqtiga ma waqtiga aad ku dhisi lahayd waqtiga aad business ku dhisi lahayd waqtiga aad maskaxdaada fikrado fiican aad ku heli lahayd maanta xilligan aynu nool nahay waa xilli knowledge age wax ila aqoon jirto ida ama customer bad noqonaysaa oo waxbaad consume gareynaysaa ama creator bad noqonaysaa waxbaad create gareynaysaa marka arrinka koobaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad social media iska xidhid muddo 30 cisha delete iska sii haddii aad social media ku dhex jirtid haddii aad social media xataa muuqaalada faa'iidada leh aad ku celcelinaysid boqolaal muuqaal oo faa'iido leh haddaad daawatid kama dhigna inaad wax qabatid ayaa kaaga muhiimsan inaad boqolaal muuqaal oo faa'iido leh daawatid arrinka labaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad iska saxdid si aad detox u samaysid inaad habeenkii hore u seexatid dad badan waxaa jirta habeenkii saamileyla 1 2 3 habeenimo barkooda gaaraan qofkaas isagoo sidee u soo kacaya isagoo sidee maalinkiisa xilmo ka soo kacaya sidee buu ku noqonaya marka waxa koobaad u baahan tahay waxa labaad u baahan tahay xaween in habeenkii hore u seexatid oo subaxaada hore u kacdid waayo faa'iidooyin badan baa ku jira Allah musta'an ilaahay quraankiisa meelo badan buu ka hadlay rasuulka kaleey salaatu wasalaam meelo badan buu ka hadlay arsaaqad barakad inay gasho حتى كلا هادي كجرتا كلا هاد ما كلي كريسي هذا أنا تبين كوروسي أحد راني أنتو ذا بدنا حاجة ودفر كاسنا ما هو حيس أدو قد كنزتي هو واحد سوشيال ميديا كو كان تيك توك بدفرسا وحصل كسادو ساعة كل حجرة فيسبوك بدفرسا وحصل كسادو ساعة كل حجرة يمكن جنريشن كان حتى للشيء يو
mid qof walba inaga mid wuxuu ku bixiyaa saacado badan telefoonkiisa allah musta'aan marka waxaad u baahan tahay inaad habeenkii hore u seexatid haddii 8 habeenimo gaadho 9 habeenimo gaadho telefoonkaaga meel iska dhigtid tagtid buug qaado wax akhris ku seexo isku day inaad habeenkii hore u seexatid subaxina aad hore u soo kacdid aad baan tijaabinayay soddonka cisho ugu dambeysay dawaad yaabaysa allah musta'aan wax iska bedelay noloshayda wallahi wax aad weyn bas ka bedelay marka isku day inaad habeenkii hore u seexatid subaxina aad hore u kacdid arrinka saddexaad isna kugula talinaya waxa weeyaan social media haaga dadka follow gareysid ama dadka daawatid ama dadka subscribe u tahay oo dhan wayna ka fiirsataa waayo algorithm-tu hadda waxa daawatid un bay ku keenaysaa wax faa'iido leh haddii aad wax maalyacni daawatid wax maalyacni kaaga soo buuxinaysaa telefoonkaaga iyo feedskaaga haddii noqoto YouTube iyo haddii noqoto TikTok iyo haddii noqoto marka isku day waxyaabaha search gareynaysid waxyaabo fiican search garee waxyaabo horumarka ka hadlaya search garee waayo bubble-kaabay kugu dhaxaynaysaa iyadoo algorithm-tu ama artificial intelligence ay social media isticmaalaan waxaan joogay San Francisco yar Soomaaliyan ku arkay Google u shaqeeya marka waan ka sheekaysanay algorithm-tu say u shaqeyso iyo waa magaaladan oo kaliya degan Google iyo YouTube waa magaaladan oo kaliya degan marka yar Soomaaliyo oo ka tagay Allah musta'aan deegaamadeena Soomaaliyeed oo San Francisco ku nool oo Google u shaqeeya marka waxay ka waramayeen rag psychologistiya oo aqliyadii ugu waaweynaa adduunka ayaa Allah musta'aan kula ciyaaray wixii adigu aad rabtid adigu aad daawatid un bal lagu soo celinaya marka waxyaabo maalyacni aad raadisid maalyacni ma maskaxda ka buuxsanayo that's why aan Facebook delete u siiyay Facebook hatta hadan waxyaabaha kama helaan idhaahdo way soo qaadaysaa because they know it Allah musta'aan kaligay ma xataa wax daawanay 8 milyan baa qof daawanay yaxaas baa libaax cunay yaxaas baa maxay kala cunay libaax baa maxay eriyaday shabeel baa kan eriyaday xayawaanada Allah musta'aan and then attention-kaaga bal haystanaya markastoo telefoonkaaga ku bixisid waqti markastoo iyagu lacag badan ay sameeyaan marka isku day dadka follow gareysid inaad si fiican uga fiirsatid haddii aanad dadkaasi ahayn dadku gaarsiinaya meesha rabtid ama waxay rabtid inaad delete iska siisid arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad telefoonkaaga nidaamisid weeyaan hadda Allah musta'aan telefoonkayga haddaan furo waxa xagga sare soo maraya waa podcast waxa xagga sare soo maraya waa application-ka buugaga ee Audible waa Kindle waa Allah musta'aan waxyaabo wax faa'iido leh wixii kale oo dhan waan kala delete garay marka telefoonkaaga waqti ku bixi inaad application-nada aanan maalyacniga ku ayna faa'iidada ku lahayn iska delete garay ku faa'iidada ku lana marka buugaagta la soo daadag waxyaabaha fiican la soo daadag isku day waqtigaaga iyo inaad Allah musta'aan ku bixisid wax natiijo ku siinaya inaad waqtigaaga ku bixisid and that is the only way aad ku noqon karaysid weeyaan arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad wax akhris samaysid waayo wax akhriska wax bedeli karay ma jirto wala dhageysi baan bedeli karin wala daawashaan bedeli karin akhrisku waa hooyada waxbarashada akhrisku focus-kaaga dhisaya akhrisku aqoontaadu kordhinaya akhrisku one key idea kaliya ayaad u baahan tahay inaad noloshaada dhinaca kale u bedeshid marka isku day caadooyinkan xun ee social media ka tagtay inaad wax akhris ku bedeshid inaad buugaagta personal development akhrisid inaad wax dhiirigelina ama aqoona ama Allah musta'aan ruuxdaada dhisaya kitaabka Quraanka ha noqoto oo suuratul Baqara inaad sudan insha Allah musta'aan akhrisid inaad Allah musta'aan adkaarta akhrisid inaad ilaahay connection fiican la yeelatid inaad wax akhris fiican yeelatid taas waa natiijada kaliya ee ku siin karaysa waayo adduunkan aynu maanta nool nahay wax walba easy maanta inaad wax noqotid top 1% ka noqotid way fududahay waayo dadkii oo dhan baa waxay ku mashquulsan yihiin waxaan dantooda u muhiimkayn marka isku day inaad wax akhris samaysatid oo maalinka weekii book akhrisid bishii aad Allah musta'aan markaad rabtid inaad wax akhrisid hadda rabtid inaad buugan oo kale inaad akhrisid buuga saddex qaab oo kala duwan baa loo akhriyaa waxa lagu sameeyaa preview waxa lagu sameeyaa review marka afarta qaab baad ku akhriyi karaysaa markaad Allah musta'aan akhriyisid isku day inaad fartaada isticmaashid ama inaad qalin isticmaashid isku day inaad highlight ku samaysatid inaad fikradahaaga weekly aad u buuqatid isku day inaad podcast-yada dhageysatid Audible inaad dhageysatid isku day inaad noqotid idea making machine haddii aad caado ka tagtid ma jirto caado ka tagay caadadaas sideedaas bahanaysa laakiin caadada waa inaad ku bedeshaa caadooyin fiican oo noloshaada wax taraya wallahi wax badan baad isku arki doontaa muddo 30 waxaad arki doontaa noloshaada wax weyn iska bedeleen arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan inaad maalinkii ugu yaraan 30 daqiiqo exercise samaysid isku day maalinkii inaad 30 daqiiqo exercise samaysid isku day exercise-ku wuxuu ku siinayaa natiijo wuxuu jirkaaga ka dhigayaa wuxuu siinayaa Allah musta'aan caafimaad wuxuu siinayaa energy wuxuu maalintaada ka dhigayaa waliba gaar ahaan dadka subaxa hore exercise gareeya energy ka badan bay helaan dadka kale marka isku day inaad caado fiican oo exercise iyo naas samaysatid insha Allah diilay waxaan rajeynayaa inaad suntan Allah musta'aan telefoonkiina maskaxdeena galiyay
inaad si uun allah mustacaan aad uga hadhi doontaan insha allah haddii la yidhaahdo dhammaantiin guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin gobonnimo idin rajaynayaa dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof ina challenge gareeya dhammaantiin waxaan u baahanahay qof inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qofka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qofka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.